kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Ol Banaadir waxaan daawadayaal halkan idinkugu soo gudbinaynaa waa daawan doontaan warbixin aan si gaar ah kaga hadlayno sida ay u dhacday toogashadii lagu fuliyay raggii loo haystay kiiskii Caashe Ilyas warbixinteena ayaadna ku daawan doontaan sida ay u dhacday toogashadaas muddo sanad ah ayaa ka soo wareegtay markii uu dhacay kufsigii iyo dilkii loo geystay Caashe Ilyas taasoo ahayd gabar daayar kuna nooleed magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug intaas oo dhan waxaa soo taagnaa kiis loo haystay rag lala xiriirinayay inay ku lug lahaayeen kufsigaas iyo dilkaas waxaana maxkamadda maamulka Puntland dhowr mar ka soo muuqday tiro rag ah kuwaas oo loo haystay kiiskaas waxaana in badan oo ka mid ah bulshada deegaanada maamulka Puntland ay dalbadeen in raggaas la marsiiyo cadaaladda maxkamadda maamulka Puntland ayaana dhowr mar waxay sheegtay in raggaas ay marin doonaan cadaaladda inkastoo tallaabadaas ay ahayd mid dadku ay sheegeen in ay soo daahday maamulka Puntland dhowr jeer lagu eedeeyay in raggaas qaarkood xabsigii laga sii daayay warar badan ayaana ka soo bixi jiray marba marka ka dambayso raggaas loo haystay kiiska Caashe Ilyas iyadoo arrintaas ay ahayd mid dadku si gaar ah ay u eegayeen qoyska Caashe Ilyas ayaana waxaa la sheegay inay isaga hayaameen halkii ay dhibaatadaas ka dhacday kolkii hore waxaana dhowr jeer maxkamadda ka codsaday in dib loo dhigo kiiska raggaas lala xiriirinayay kufsiga iyo dilka gabadha da'da yar ee Caashe Ilyas ay kula kaceen waalidiinta iyo ehelada raggaas loo haystay inkastoo maxkamadda marar badan ay dib u dhigtay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa taagneed in waqti ay ku jaangoysay maxkamadda waqtigaas oo la wada sugayay ahaydna bishan 11 bisha labaad 2020 laba ka mid ah raggii lagu helay kiiskii Caashe Ilyas ayaa lagu fuliyay dil toogasho ah ciidamada maamulka Puntland ayaa toogasho ku fuliyay laba ka mid ah saddexdii nin ee lagu helay kufsigii iyo dilkii loo geystay Caashe Ilyas aadan oo 12 jir ahayd dhacdadaas oo si weyn u taabatay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan raggan ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ahna caasimadda gobolka Bari labada nin ee la toogtay ayaa kala ahaa Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige halka muddo 10 cisho ahna dib loo dhigay toogashada Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame wararka qaar ayaa sheegaya in sababta xukunka toogashada looga reebay ay tahay inuu dalbaday aabaha dhalay Caashe Ilyas aadan toogashada lagu fuliyay raggan ayaa hore loo sii ogaa waxaana 12 bishii hore shaaciyay xeeralyaha guud ee maamulka Puntland dad badan ayaa aad u soo dhaweeyay inay cadaalad hesho Caashe Ilyas oo bishii February ee sanadkii la soo dhaafay ee 2019 la isugu daray kufsi iyo dil muddo sanad kadib ayay ku soo aadaysaa dilka lagu fuliyay raggan loo haystay kiiskii Caashe Ilyas waxaana dad badan ay hore u aaminsanayeen in raggan marnaba aysan maxkamadda maamulka Puntland ku fulin doonin xukun dil ah iyadoo dadka qaar ay sheegayeen in raggaas qaarkood kol hore ay baxsadeen balse dadaalo badan oo la sameeyay ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu guuleystay in laba ka mid ah raggaas horena ay u soo bandhigtay maxkamadda dhowr jeerna la hor keenay in lagu fuliyo dil toogasho ah inkastoo ay jireen dad arrintaas ka soo horjeeday laakiin badi dadka deegaanada maamulka Puntland ku nool ayaa waxay sugayeen inay Caashe hesho cadaalad waxaana dilkaas uu ahaa mid dad badan ay soo dhaweeyeen ay fulisay maxkamadda maamulka Puntland inkastoo kol horeba dadka qaar ay sugayeen tiro dad ahna ay jireen oo ku tilmaamay in dilkaas uusan marnaba ahayn mid dhici doona inkastoo shakigii ay qabeen qaar ka mid ah bulshada deegaanada maamulka Puntland ay soo afjartay maxkamadda maamulkaas kadib markii 11 bisha labaad 2020 ay ku fulisay maxkamaddu dil toogasho ah laba ka mid ah raggaas halka mid kalena dib loo dhigay oo muddo gaaraysa 10 maalin laga dib mariyay iyadoo dadka qaar ay sheegeen inuu codsaday aabaha dhalay Caashe Ilyas markii ay soo ifbaxday dhacdada muujinaysay inuu dhacay kufsi iyo dil la isugu daray gabar daayar oo aan hore uga dhicin deegaanada maamulka Puntland ayaa dad badan arrintaas waxay ka muujiyeen walwal xoogan waxaana deegaanada maamulka Puntland muddo bilooyin ah laga hadalhayay arrintan iyo sida ay ku dhacday midda dadku ay aadka uga naxeen ayaa waxay ahayd gabadha oo ahayd gabar aad u daayar iyo marka dambe habka loo dilay oo ahayd mid arxan darro ah maalmo badan gadaasheed markii ay raadinayeen waalidiinteeda iyo ehelkeeda ayaana la arkay gabadhooda oo si arxan darro ah loo dilay ilinkoodana la soo dhigay meel aan ka dheereen taas ayaana waxay noqotay midda keentay cabsida iyo walwalka xoogan ee shacabka deegaanada maamulka Puntland ay ka muujiyeen falkaas
kaas oo noqday kii ugu xumaa ee ka dhaca deegaanada maamulka Puntland ee la xiriira kiis kufsi ah. Dadka qaar ayaana waxay sheegeen in arrintaas ay raggaas u sameeyeen in ay ahayd mid ugu weyn ama ujeedka in aanan la helin halka laga tixraaci lahaa raggaas haddii kufsiga ay sameeyeen. Sababta dilka ku qasabtana ay taas ahayd iyaga oo diiday in marnaba la ogaado ragga ka dambeeya kufsigan lagula kacay gabadhaas da'da yar. Haddii ay noolaatase waxay ahayd in iyadu ay sheegi lahayd kadibna iyaga lasoo qaban lahaa. Taas ayagoo ka cararayay ayayna sameeyeen kiiska dilka ah oo ahaa mid arxan darro ah. Habka ay u dileen markii dad badan ay indhahooda saareen gabadhaas sida loo dilay oo ahayd si aad u xun. Dilka iyo kufsiga foosha xun ee lagula kacay gabadha da'da yar ee Caashe Ilyas ayaa waalidiinteedu waxa uu ku qasbay inay halkaas isaga hayaamaan. Hooyigii ay ka deganaayeen gaalkacyana ay ka guuraan iyadoo laba sabab loo sabaynayo oo ahayd hadallada ka soo gaaraya bulshada dhexdeeda iyo sidoo kale inay jireen hanjabaado kaga imaanayay ehelada wiilasha kufsiga geystay oo maxkamaddu ugu dambeyntii laba ka mid ah ay toogatay. Taas ayaana waxay noqotay in dadka qaar ay ku tilmaameen in deegaanada maamulka Puntland dadka ku nool ay isku awood sheegtaan. Tallaabadan dilka oo ay fulisay maxkamadda maamulka Puntland ayna ku fulisay raggii loo haystay kiiska dilka Caashe Ilyas Aadan ayaa dad badan waxay u arkaan mid cadaalad ah. Maxkamadda maamulka Puntlandna ay qaaday tallaabadii loo baahnaa kuna habboonayd raggaas, maadaama dadka qaarkii ay muddo sanad ahba dhowrayeen halka kuwa kalena ay arrintaas ka quusteen. Maxkamaddana ay ku tilmaameen mid aanan cadaalad ahayn. Balse sugitaan badan kadib oo dadkaas ay sugeen ayaa waxay noqotay ugu dambeyn in laba ka mid ah raggaas la dilo halka midka kalena loo muddeeyo waqtiga uu ka dambeynayo ragga la toogtay. Waa mid ka mid ah tallaabooyinka guusha dadku ay ku tilmaameen oo ay hore u qaaday maxkamadda maamulka Puntland, taas oo fagaaro ku taalla Boosaaso ku toogatay raggaas dacwadoodu ay soo taagneed muddada gaaraysa 1 sano. Ugu dambeynna maxkamaddu ay soo afjartay. Marka laga soo tago dadka ku nool deegaanada maamulka Puntland oo si isku mid ah intooda badan u soo dhaweeyay dilka lagu fuliyay labadaas nin ee kufsiga loo haystay, halka midka kalena uu yahay mid weli sugayo in uu maro cadaaladda balse waqtigii uu mari lahaa la sii muddeeyay, ayaa waxaa jirta in sidoo kale qoyska Caashe Ilyas ay soo dhaweeyeen tallaabadan maadaama maxkamadda maamulka Puntland ee dhowr jeer raggan hor keentay maxkamadda iyadoo eedeymahaasna ay ahaayeen kuwa soo taagnaa. Maxkamadduna ay doorkeeda qaadanaysay waqti walba oo raggaas la keeno maxkamadda horteeda. Helitaanka cadaaladda ay heleen qoyska Caashe Ilyas ayaa waxay sababi kartaa in dib ay ugu soo laabtaan halkii ay deganaayeen ama hoygii ay kaga noolaayeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Sababta loo sababeynayana ay tahay inay ogaadeen in deegaanada maamulka Puntland ay ka jirto cadaalad maadaama maxkamadda maamulka Puntland la hor keenay raggaas kadibna cadaaladda ay marsiisay. Shacab badan oo walwal ka muujinayay deegaanada maamulka Puntland ku noolaanshiyahooda iyo xadgudubka xilligaas dhacay ayaa xilligan waxay noqonayaan kuwa iyagu aaminin kara ku noolaanshiyaha deegaanada maamulka Puntland. Haddii dhib uu dhacana ay maxkamadda maamulka Puntland cadaaladda marsiin doonto dadka dhibkaas geysta, iyadoo xilligan la wada arkay hawsha ay qabatay maxkamadda maamulka Puntland oo noqotay mid dad badan ay u riyaaqeen maadaama tallaabadu ay tahay mid dadka badankiiba ay ku tilmaameen inay tahay mid cadaalad ah. Inkastoo tallaabadaas aysan ku qanacsanayn ehelka iyo waalidiinta ragga loo haystay kufsiga, waxaana dadka qaarkii oo ehelkooda ka mid ah ay hore ugu taliyeen in mid ka mid ah wiilashooda maadaama laba ka mid ah ay walaalo ahaayeen la sii daayo halka midka kalena uu maro cadaaladda. Balse arrinta oo muddo soo jiitamaysay ayaa waxay noqotay maxkamaddu inay go'aan ka gaarto ayna muddayso waqtiga uu dhacayo dilkooda. Balse xilligan mid ka mid ah raggii walaalaha ahaa maxkamaddu ay waqti gaar ah u qabatay lagana reebay toogashadii ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Reebitaanka ninkaas ka midka ahaa ragga kufsiga lagu eedeeyay ayaa waxaa la sheegay inuu codsaday aabbaha dhalay Caashe Ilyas. Dad badan ayaana si gaar ah u eegaya in ninkaas uu maro cadaaladda, walow qaarkood ay sheegayaan in maxkamadda kol hore laga codsaday in mid la dilo midna la sii daayo, taasna ay tahay midda uu baaqigu ku sii yahay midka ka midka ah raggii dambiilayaasha ahaa. Dadkaas ayaana waxay wada dhowrayaan in ninkaas lagu fuliyo cadaaladda iyo in maxkamaddu ay sii dayso, iyadoo uu jirayba shakiga ah in mid ka mid la dili doono midna la sii dayn doono ragga walaalaha ah. Daawadayaal, intaas ayay ku dhantahay warbixintii aan sida gaarka kaga hadlaynay ee ahayd sidee ayay u dhacday toogashadii lagu fuliyay raggii loo haystay kiiskii Caashe Ilyas, kuwaas oo lagu toogtay
fagaaro ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dilkaas oo dhacay 11 bisha 2 2020. Dacwadda ayaa soo taagneed muddo hal sano ah. Bishii 2 sanadkii hore ee 2019 ayaana dacwaddan ay soo bilaabatay kadib markii la arkay kufsiga iyo dilka la isugu daray gabadha da'da yareed ee Caashe Ilyas, taas oo ay dhaafsiiyeen noloshii dunidan. Waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada warbixinteena iyo warbixinada ka baxa channelkeena.